bismillahi rahmaani rahiim. Waxaan ku saloonayaa maamulaha iskuulka maamula Farxaan oo inoogu warrami doona waxyaabaha iskuulka ka dhiman iyo waxyaabaha loo qabanayo ku saloo maamula. bismillahi rahmaani rahiim. waxaan marka hore ilaahay baa mahad leh, marka labaad waxaan mahad gaaray iyagana u celinayaa ururka taakulo ee degmada Balcabane. ururkaasoo run ahaantii taageersan waxqabadka dugsiga. ururku ma aha urur cidi dirtay, waa urur iyagu sidaan aaminsanahay iyagu iskood isku magacaabay kadib markay arkeen baahida dugsiga taala. anoo ku hadlay magaca maamulka dugsiga, run ahaantii dugsiga baahi xoog leh ayaa ka jirta, haddana kulley kolba wixii la qaban karo unbaa loo qabanayaa. iminka waa arkasaano iskuulku magaaladu way ku dhowdahay, iskuulkuna haddaan u deeri lahayn dhibaato fara badan ayaa ka yimaada, maadaama iskuulku yahay iskuul ku dhow degmadii ama magaaladiiba ku soo dhawaatay. horta baahida koowaad iyadoo baahidu kala badbadan yihiin markaan horta aanu iman iskuulka gudihiisa, baahida koowaad oo noo haysaa waa iyadoo deer loo sameeyo. intaa marka ka imaaday aan hoos ugu soo dhaadhaco baahida dugsiga ee gudaha, waynu arkaynaa fasalada iskuulka waxaa ka dhisan 5 fasal, 2 fasal mooyaane 3 fasal ee kale aad buu burbursan yihiin. inkastoo saaka ay ururka taakulo oo aad iyo aad ugu mahad celinaya ay hawshooda gacanta ku hayaan bilaabeena, waxaan rajaynayaa in marka ay intaa dhameeyaan wixii kale baahiyana aan wada qabsan doono bulsho ahaan iyo urur ahaanba. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillaahi raxmaani raxiim. asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. halkan waxaanu ku soo dhoweynaynaa ururka laydhaa taakulo oo u shaqaynaya degmada Balcabane, taasoo horena ay ugu shaqeeyeen iminkana ay wadaan dhis iskuulku leeyahay oo ay wadaan. waxaanu leenahay ku soo dhowaada, waanu idinku soo dhoweynaynaa. waxtarkaa aad samaysteen haddaad tihiin ururka taakulo waxa weeyaan aad iyo aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay, waanu idinku soo dhoweynaynaa. ku soo dhowaada degmadiinna iyo waxaa u qabateenba ku soo dhowaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka hore salaanta waxaanu salaamaynaa ururka noo yimid ee dhallinyarada ee la yidhaahdo taakulo, waanu mahadinaynaa. ururka waxaa mahadinaysa degmadoo dhan, iskuulkoo qura ma aha. degmada waxii loo qabto inay degmada aada u mahadiso weeye. annagoo ah dadkii u dhashay degmadan, intuu ugu horeeyo guddoomiyuhu, xoghayaha, sheekhalbeledka, odayaashii kale ee degmada ahaa, inta yadoo dhan waanu la fadhinaa. waxay inamadaasi soo tireen iyo waxay noo tiri doonanba waanu mahadinaynaa. waxay tiraana wax degmada wax ugu filan weeye, iyaga aad baanu u soo dhoweynaynaa una mahadinaynaa. haddaan degmada nahay inaanu inaguna qabanno wixii walba ururkii noo yimaadaba la qabanno, si wanaagsan uga shaqayna waddankeenna iyo iskuuladeenna ayaa inagana inagu waajiban, waananu u diyaargaraysannahay. maantana inamadii baa nala jooga, iskuulkii waa la bilaabay, bilowgaasaanu ku dhammaynaynaa. annaguna waanu la garab gelaynaa wixii waxtara, sidaa iyo nabadgelyo waananu mahadinaynaa. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaanba dadweynaha iyo dhallinyarada ururkan taakule ee degmada Balcabane halkan nala jooga. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa weeye ururkan marka aynu ka hadalno runtii wuxuu qabanayaa shaqo wanaagsan ayuu qabanayaa iskuulkan. manaan samaysan karnay anagu run ahaantii maanta oo waqti waxa lagu jira adag, caruurtiina de waxay u baahan tahay iskuul iyo nidaam meel ay wax ku dhigtaan. annagu maanaan haleeleen manaan qabsan karnayn maanta. ururkaasi aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa. waxyaabaha kale tusaalaha noogu tahayna waxa weeye dadku hadday isu tagaan inay wax qabsan karaan, taasina laftigeedana waa tusaale annaga noo tahay ku dayasho ah. waanu ku dayan doonaa insha allahu, waananu qabsan doonaa. laakiin waqtigan lagu jira ee adag, dhallinyarada isu soo xilqaantay maanta ee iskuulka hagaajinaysa runtii aad iyo aad ayaan anagu haddaan odayaashan nahay iyo dadweynaha degmada Balcabane aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqaynaa. waxaanu leenahay ururka taakule ee degmada Balcabane wax badan buu markii horeba qaban jiray.